su-aashayda koowaad maxay tahay xaajada uu ilaahay uu qabo inuu abuuro xawiya aadan iyo basharka maxayse tahay faa'iidadu su-aashayda labaad shay kasta wuxuu leeyahay abuure haddaba ilaahay abuure ma leeyahay su-aashayda saddexaad muxuu yahay macnaha allah walaalku waxayna weydiiyey 3 su'aalo su-aasha koowaad wuxuu ilaahay u abuuray xawiya aadan maxayse tahay sababta loo abuuray caalamkan inaan dhex joogno iyo basharkaba ilaahay wuxuu abuuray xawiya aadan si uu uga yimaado jinsiga basharka waxayna ahayeen awooyaasheenii hore Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay suurada xujuraat suurada 49 ayada 13 ya ayuha an-nas inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaa'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'aliimun khabiir hada waxayna ka abuurnay labiya dhadig waxayna ka dhignay shu'ub iyo qabaa'ilo sa isku garataan qofka idinku karaamada badan ilaahay agtiisa waa qofka idinku cabsida badan ilaahay waa cilmi badane wax kasta khabiir ku ah sharaftu ma aha qaninimo midabka iyo qaabka toonna waa taqwada sharaf qof aan taqwad lahayna ilaahay agtiisa sharaf kama leh idan xawiya aadan waa waalidkeen adiga waalidka aniga waalidkay iyo dhammaan basharka waalidkood idan sababta darteed ayaan ku leeyahay waxa tahay walaalkay allana wuxuu ku yeeray qaab guud ahaaneed alla wuxuu ku leeyahay suuratu israa suurada 17aad aayada 7aad walaqad karramna bani aadama ilaahay wuxuu leeyahay waxaanu karaameynay bani aadamko dhan ha ahaado mid ku dhashay Hindiya ama Mareykanka ama UK ha ahaado mid islaam nagu dhalay ama masiix alla wuxuu noo sheegay inuu bani aadam oo dhan karaameeyay haddii aad tahay insaan ilaahay wuu karaameeyay ha ahaado magacaagu Dhaakir Cabdullaahi Raamu Shankar haddii insaanimo lagu dhalay ilaahay wuu ku karaameeyay imikana uu nimaano su'aasha ilaahay muxuu abuuray jinsiga basharka ilaahay wuxuu abuuray basharka maxaa yeelay waa kan ugu fadli badan wuxuu ilaahay abuuray makhluuqaad ka saaray bini aadamka ilaahay way adeecaan in tusaale malaa'igta u soo qaadano ilaahay wuxuu noo sheegay inay si degdeg ah amarkiisa u qaataan basharku waa mid ka mid ah makhluuqaadka ilaahay abuuray haddana ilaahay wuxuu xorriyadu siiyay inuu amarkiisa adeeco ama khilaafo ilaahay wuxuu abuuray basharka wuxuuna ku galadaystay inuu siiyay doonis inagu waxay ka mid nahay wuxuu ilaahay abuuray kuwa ugu fadliga badan laakiin waxayna la siiyay khiyaar inuu ilaahay adeecno ama caasino haddii aynu ilaahay adeecno waxnu aadaynaa jannada haddii aynu ilaahay caasino waxnu aadaynaa naarta alla wuxuu ku leeyahay suuratu mulki suurada 67aad aayada 2 alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ilaahay waa kan abuuray nolosha iyo geerida su idin imtixaano kiineba amal wanaagsan sameynaya marka noloshani waa imtixaan alla wuxuu ku leeyahay suuratu dhaariyat suurada 11aad aayada 16 wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun macnaheedu yahay inaanu ilaahay u abuurin insiga iyana in caabudaan marka basharku waa khalqi ilaahay siiyay iraado inuu adeeco Allah ama uu caasiyo ashiyada kalena sida digaha irta hatta buuraha raak wuxuu noo sheegay in ilaahay u tasbiixsanayaan ilaahayna adeecayaan marka ilaahay wuxuu siiyay doonis in ilaahay ku adeecno sidaas waxaan ku fadli badanahay malaa'ikta haddii aynu ilaahay caasino waxay noqonaynaa kuwa la jira shayaadiinta idan waxayna la abuuray si aakhirayna loo itixaamo aynu u nimaano su'aasha labaad shay kasta wuxuu leeyahay abuure ilaahay abuuray qofku hadduu yiraahdo shay kasta wuxuu leeyahay khaaliq taas waa cibaaro khada ah cibaarada saxda ah waxay tahay inuu makhluuq kasta leeyahay khaaliq taariifka ilaah waa inaanu makhluuq ahayn walam yakun lahu kufuwan ahad wax u dhigma ama leh aynu u nimaano qaybta u dambaysa ee su'aasha allah الله أكبر تعريفك أول نجسنا كوسو قاذك وسورة الإخلاص سورة اللي 12 آيات كو إلى أفر إلهي وحقول لي هاي قل هو الله واحد ترى هذا إلهي وكان كليجاه الله الصمد إلهي وكان لو قسته لم يلد ولم يولد إلهي مودلين لما ندلين ولم يكن له كفوا أحد دقتنا مله تعريف كان وحكوا بني هاي أفر جملة والسوى عنه تعريفنا يا إلهي قل هو الله واحد رضى إلهي وكان كليجاه الله الصمد إلهي وكان لا قسته لم يلد ولم يولد إلهي وحمد دلين لما ندلين ولم يكن له كفوا أحد عيد دقتنا مله إله كستو عابد يسوى وحضر دقتا اختبار كسورة إخلاص هدي أتكيه شو إله هدي أتكيه لنا إله معها
su-aasha 16aad oo ah su-aalaha ugu faafitaanka badan ee islaamka laga qabo waxay tahay maxay buu islaamku u dulmiyaa dumarka marka la joogo xagga dhaxalka oo loo siiyaa ninku wuxuu qaadanayo kala badh maxay bay gabadha marka islaamka la joogo u qaadanaysaa ninku wuxuu qaadanayo kala badhkii waxay leeyihiin sidaasi cadaalad maaha marka dumarka loo eego su-aashan waxay ka mid tahay su-aalaha ugu faafitaanka badan islaamka laga faafiyey isla markaana khaladka ah qur-aanka kariimka ah wuxuu dhaxalka kaga hadlay meelo kala duwan suuratul baqara suurada 2 aayada 180 suuratul baqara suurada 2 aayada 240 suuratul nisa suurada 4 aayadka 7 ilaa 9 suuratul nisa suurada 4 aayada 19 suuratul nisa suurada 4 aayada 33 suuratul maa'ida suurada 5 aayadka 206 ilaa 208 dhaxalka qur-aanka waxa lagu sheegay meelo kala duwan laakiin sagoo daqiiqa waxa laga warramay suuratul nisa suurada 4 aayadka 12 ilaa 12 suuratul nisa suurada 4 aayada 176 Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraan ku leeyahay suuratu nisaa suurada 4 aayada 12 Ilaahay wuxuu dardaarmayaa awlaadiina inuu leeyahay kalabka ah laba dumar dheefto hadii ay yihiin dumar qurac kana badan laba waxay leeyihiin saddex meelood oo laba meel waxaad ka tagteen hadii ay tahay gabadh qurac waxay leedahay kala badh dhaxalka hadii ay wax tushur kaga furan yihiin guriga tagdibna soo qabso kitaabka quraanka kala fur kana badh hadii ay fahmin carabiyada xaqrida tarjumada lagu turjumay quraanka suuratu nisaa suurada 4 aayadka 11 ilaa 12 xaaladka qaarkood gabadhu waxay qaadanaysaa ninku xooluhu qaato wax ka badan sida marka ay dhimato gabadh la qabo kana tagto saygeeda aabaheed iyo hooyadeed saygeedu wuxuu qaadanayaa qalihii oo meelood oo meel iyaduna waxay qaadanaysaa 3 qoyd marka loo qaybiyo meel aabaheedna wuxuu qaadanayaa 6 meelood marka loo qaybiyo 6 meel waxaan aragtaa inay ka badan yihiin hooyadu qaadatay xoolaha aabahu qaatay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu cadaalada iyagoo dhan uu cadaalad sameeyaa القرآن wuxuu leeyahay suuratu nisaa suurada 4 aayada 4 ilaahay marna ka dhicmayso wax quraan jaleeg oo dulmi ah